sabab ma uga tagnaa waxyaabaha muhiimka inagoo og muhiim inay noo tahay oon u raacnaa waxyaaba yaryar oo nolosheena waxba ku qabsan kareen. Professor baa wuxuu soo galay maalin fasal isagoo galaas maran siita. Galaaskii buu ku riday dhagaxaan waaweyn. Markaasuu ardaydii ku yidhi galaaskani ma buuxaa? Markaasay dhaheen haa. Markaasuu haddana wuxuu soo qaaday quruurux ama dhagaxaan yar kolba saa u taqaano. Markaasuu ku dhex shubay. Markaasuu yidhi haddana markaasuu yidhi muu buuxaa. haddana wuxuu soo qaaday ciid. Markaasuu ku dhex shubay. Markaasuu ciid waxay buuxisay meel kasta u dhaxaysay dhagaxaanta oo banaaneed. Markaasuu haddana yidhi galaaskani ma buuxaa? Markaasay yidhaahdeen haa. Markaasuu professorka ardaydiisii ku dhahay waxaan rabaa inaad ogaataan inay noloshiinu tahay sida galaaskan oo kale. Dhagaxaanta waaweyni waxay u taagan yihiin waxyaabaha muhiimka noloshaada dhabta ah sida familigaaga, saaxiibada, caafimaadkaaga, shaqadaada iyo waxaad higsanaysaa hamigaaga ah. haddaad waxyaabo badan ka tagto laakiin aad haysato intaan soo sheegay noloshaada waad ku dabaqi kartaa. quruuraxa ama dhagaxaanta yaryarna waxay u taagan yihiin waxyaabahan aadka muhiimka u ahayn sida inaad guri weyn yeelato, sida inaad gaari qaaliya gadato iyo waxyaabo lamid ah. ciiduna waxay u taagan tahay balwad iyo meelo marmar iyo waxaan noloshaada waxba kusoo kordhinahaynin. laakiin haddaad ciidda noloshaada ku horshogto oo ma helaysid boos bannaan ood ku riddo dhagaxaantii waaweyneyd ama quruuraxiiba. haddaba nolosheenu waa sidaas. haddeen awoodayna ku lumino waxyaabo yaryar oo bilaa macniya waqti uma helayno ama awood uma helayno aynu ku qabanno waxyaabaheeni muhiimka ah ee ahayd inaan qabsano. haddaba ilaasho oo u digtoono waxyaabaha muhiimka waqtigaana ku bixi wixii muhiimku ah. waad heli waqti kugu filan ood saaxiibada ku raacdo ama xaflad ku tagto, laakiin marka hore ilaasho waxyaabaha waaweyn ee muhiimka kana horeysi waxyaabaha yaryar. intaasaan kusoo gabagabeynayna barnaamijkeena maanta. aad iyo aad baad mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.